maamulka degmada Garadag oo uu hogaaminayo duqa degmada Garadag Maxamed Cilmi Maxamuud iyo sidoo kale taliyaha ciidanka rugta booliska ee degmada Garadag ayaa waxay kormeer indhayn iyo kurgalka xaaladda nabadgelyo ee deegaanadaasi ku soo mareen deegaano ka tirsan Dabagodadood kuwaas oo ka tirsan degmada Garadag ee gobolka Sanaag halkaas oo isugu yimaadeen bulsho badan oo reer guuraaya kuwaas oo isugu soo guuray gobolada Puntland iyo sidoo kale gobolada Somaliland sida gobolka Sool, Togdheer iyo waliba Saraar waxayna bulshada deegaanadaasi ku adkeeyeen maamulka dawladda hoose iyo taliyaha boolisku inay ilaaliyaan nabadgelyada sidoo kalena waxay xukuumadda baaq ugu direen inay soo celiyaan rugtii booliska ee deegaanka Gowsa Weyne si ay uga qayb qaadato bay dhaheen ilaalinta iyo horumarka nabadgelyada waxayna badiba bulshada kula kulmayeen iyadoo xooluhu isugu yimaadeen ceelasha laguna jiro xilli abaara oo ay xooluhu biyo qabteen waxayna dhammaantoodba khudbadahooda ku taxalluqayeen maamulka degmada oo ay kula dardaarmayeen bulshada deegaanadaasi inay ilaashadaan nabaduna ay tahay shay aad u qaaliya sidoo kalena waxay ku adkeeyeen dadka deegaanadaasi loogu soo guuray inay soo dhaweeyaan bulshada reer guuraaga ee abaarta u keentay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa gacmo furan baan ugu soo dhaweynaynaa waa la nabad qaba haddaan nahay deegaankii si wacan biyaha waa loo wada cabaya dee waxaa jirta waxaa culayska ka hadasheen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa markaan taabto dadka soo guurtada ah ilaa dee waxa laga yimi ilaa Togdheer ilaa Nugaal meel kasta waa la iska yimi dadkuna kale dhibtiisu leeyahay waa ogtiin qof waliba og yahay taas ay waxaanu maanta anagoo ah maamulkii oo dhameystiran taliyaashii ciidanka ee degmada Garadag waxaanu halkan maanta aanu xogaalo noqosho iyo xaqiiq raadin aanu nimi runtii aad la iskugu soo guuray oo dadkii ay abaartu soo barakicisay oo gobol kasta oo ka tirsan tahay Soomaaliya iyo Somalilandba ay iskugu yimaadeen ceelashan runtii waxaanu halkan ka diraynaa in la ilaaliyo nabadgelyada dadka isku soo guuray inay ilaaliyaan nabadgelyada waxaanu cod dheer ugu sheegaynaa inay tahay nabadgelyadu lagama maarmaan inta maanta bulshada isku soo guurtay waxa ay ceelasha kaga cabayaan waa nabadgelyo siyaawadiin sida la sheegay waxaanu nahay maamulkii Garadag ee degmada Garadag oo kormeer shaqo ku maraya deegaanka oo lagu soo guuray iyo xaaladaha ka jiraan xoogaal u noqonaynay runtii ayaanu maanta annaga iyo xogayihii iyo maayirkii iyo maayir ku-xigeenkii iyo golihii deegaanka iyo ciidankii nabadgelyada degmada iyo waayeelkii kale ee deegaanka Gowsa Weyne aanu dadweynaha deegaanka Gowsa Weyne iyo dadka soo guuray labadaba ka codsanaynaa inay qolada soo guurteena nabadgelyada ilaaliso oo ay feejignaadaan qolada lagu soo guuray deegaankana ayna taxaddar weyn muujiso oo dadka ay soo guuray waa dad meelo kala duwan ka yimi xasaasiyadiisa xaaladihiisu leeyahay waa Nugaalo waa la yaqaano Dabagodadooda inta badan ma ba xasaas waxaanu joognaa ceelashii mataanaha ahaa ee Dabagodadood ceel Gowsa Weyne iyo Cagalaaye waxa isugu yimi hawd iyo Nugaal sida uu maayirku sheegay maanta anaga hawlgalka iyagu wuxuu ku saabsan yahay wacyigelin hadal badanimo yaalo laba erayo ayuu maanu baxaynaa mid xukuumadda naga sareysa ayaanu faraynaa midna deebka leeyahay dadka deegaanka baanu faraynaa dadka deegaanka waa takuqaadada deegaanka dhaqan baan u lahayn maqasidan oo kale wax u dhacaan walabada ceelal mataanaha ahaa ee ummadda biyaha u ahayd si dhaqankii aanu lahayn ayuu baynu wadaynaa waynu soo dhaweeynaa harkaynu uga baxaynaa gurigaynu uga baxaynaa oodaynu uga baxaynaa xoolaheedaynu joojinaynaa waxaynu waraabeynaa xoolaha soo guurtada dhaqankii lagu yaqaanayo suubanaa xukuumaddana naga sarreysana waxaan baaq ugu dirayaa Gowsa Weyne waxay sharaabisaa ceelasha Dabagodadood oo dhan waxay u baahan tahay rug bileys rugti way dhisan tahay ciidankeedii baa maqan waxaanu madaxda heer gobol iyo heer qaran baanu ka codsanaynaa in si degdeg ah rugta bileyska kulay ahaato inta xooluhu joogaan ha ahaatee inaan halkan waxaanu joognaa ceelkii Dabagod ceelasha tiradoodu waa badan tahay jiida badan
godheeri fadhiyar ceelka imkaan taaganay oo ka ugu muhiimsana oo ilaa 50 fadhi oo geeli fadhiyaal oo aan cabin marka lama qiyaas karaba miisaanka geela dul fadhiya wax la qiyaas karaba maaha geelaasi wuxuu ka yimi ilaa kilka shanaad ilaa kilkii shanaad baa ceelkaan taaganay ka cabaya waxay isu keenay waa abaar Puntland Soomaaliya intaba way ka socdaan waxay isu keenay waa abaar ammaan xoojintiisu aad u adagtay waxa soo ceeli waxa u baahan in la joogo in ciidanku joogo agalaaye oo daris la go'so weyne waxa jooga soo hayaantadii oo nugaal iyo hawdba ka timi oo isugu timi labada ceelba cirkaas ay marayaan dadkii oo dad soo qabtay qoryeystaan way yimaadeen fariinta aan halkan ka dirayna anagoo golihii deegaanka garada dhan fariinta aanu maanta dirayna waxa weeye mid ay baahi keentay haddii aan dawladdu wax ka qabanna aan macquul si ahaanaynin fariinta aanu dirayna waa 3 soo guurtada oo nabadda ilaalisa haddii nabad la waayo caws la daaqayaa ma jiro ee nabadda ilaaliya baan farayaa qolada loo soo guurana waxaan leeyahay nin dhulkiisii lagu soo guuray dee baahi baa wadee hal la soo dhaweeyo dadka hana loo tudo oo hal la shaqeeyo ceelasha laga waraabiyo oo waliba qolayaha heshiinada haysto waana ku ciriiri gelina dadka soo guurtada heshiinka oo ku qaali garaynina ee dadka ceelasha kala waraabiya dadka oo soo dhaweeya naxariis kasto aad fashaaday aad cid fashaa aad cid u geysataana aduun bay ku taalaa dib kasto aad cid u geysataana aduun bay ku taalaa dadka naxariis loo sameeyo oo la soo dhaweeyo oo ceelasha laga waraabiyo hadaa heshiima haystaan ka waraabiya hadaa xoog haysataan la gala oo dadka soo dhaweeya fariinta saddexaadna waxaan farayaa dawladda 3 arrimood baan haystaa abaar sixir barar iyo ciidanka nabadgelyada oo nagu liito aad iyo aad noogu liita arrimaha waxaan leeyahay dawladday horta ciidanka naga soo caawiya oo ciidan noo keena gobol iyo qaranba meeshu waa dabagodood farax burburtay Honkebel TV wararka gobolka Sanaag